gobolka cabdiweli axmed warsame. وما سنت لجن إنا لله وإنا إليه راجعون dhamaanteena dhalinyarada reer Kismaayo waxay tacso u dirayaan xildhibaankii dowladda federaalka ee Soomaaliyeed Ismaan Cilmi Boqorre oo ku dhintay magaalada Muqdisho maalintii shalay ahayd gacan ka xaqdaran ee dishay gurigiisa dhexdiisa ku dishay marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay tacso u dirto qoyskiisa iyo familkiisa waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa xildhibaanka cid dishay ayada wadanka mas'uulka ah inay hadduu ilaahay insha Allah dowladdu isxilqaanto وهدو إلهي إن أمد الصومالية ذي وحشيته دولتنا ومهد علنيا سيدي ودنك وحسلس إن شاء الله وحن كوري جنيا حلفة قبقابي هذه جالي درير اسمها يسكسو دبريد هذه لأن يردي أصحاب تيسي جالي ديسي مدح ديسي لما محل لي هاي صاحبك قدر سودو عبد الله ما سنته waxaan salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay xalfadan oo sharafta mudan waxaan leeyahay iyadoo jirto qabow iyo baraf aad ka soo qayb gasheen aad iyo aadna waan iga mahadcelinaynaa imaatinkiina waqtigiina waxaan halkaan oo kale aan ku xusayaa oo nagu casuman caawo AK Xasan xildhibaan u joogo magaalada Minneapolis gobolka Minnesota asagana waa ugu mahadcelinaynaa waqtigiisa waxaan kaloo halkaan ugu mahadcelinayaa Cabdiweli Axmed Warsame oo u sharaxan maayarka magaalada Kismaayo insha Allah waxaan u rajeynayaa inuu ku guuleysto uuna garab istaagin haddana dhalinyarada Kismaayood xalfadda caawin uu noogu casuman yahay waxaan kaloo aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan ragga asxaabta oo aan si wada shaqeynaynay oo hirgeliyay inaan caaw iskugu imaano xalfadan anigoo soo koobin kara magacaashooda laakiin haddaan laba iyo saddex ka dhawaajiyo Cabdirashiid Shariif Boole jaamac Kadiye marka dadka kale walaalaheen waa uga mahadcelinayaa kulli hawshaan wada qabanay hal qof Soomaali waxay tiri hal far shan far farfool far ma dhaqdo mahmaha Soomaalida ahayd marka horta waxaan waa inaan ka dhaco waxa shirkan uu ku saabsan yahay iyo waxaan isugu imaanay meeshan caawo iyo uljeedka anaga aan rabno waxa waaye haddaanan dhalinyarada Kismaayood marka la dhaho Jubbaland waxa ka soo jeednaa magaalada Kismaayo magaalada Kismaayo iyo nawaaxigeeda waxaan ugu talagalnay inaan caawino waxaan tari karno haday noqoto dhaqaale haday noqoto financial oo maalgeliyo magaalada iyo nawaaxigeeda Kismaayo marka fikirkaas anaga soo wadnay dhalinyaradana ay ka kooban 10 ilaa 11 qof macnaha social media ma isticmaalaynin wax ma soo duweynin laakiin walaalahan dadka baahan dadka dhibaataysan waa caawinaynay markay noqoto ciidda Ramadaanka marka waxaan islaan hadii aan u bandhigno walaalahan kala Kismaayood ay naga qayb qaataan dadkaas aan caawinayno in si balaarato caawinaadaas dad baa hadda waxa laga yaabaa gaarin caawinaada waxaan caawinayno marka way ugu taageereen saasaan soo bandhignay muhiimadan waxa waaye in aan dadkaas baahan oo wadanka joogo inaan caawino oo ka tashano sidaan u horumarinayn magaaladeena iyo nawaaxigeeda aan taageerno dadkaas oo aan haysanin wax taageera ama haday noqoto shaqo haday noqoto caafimaad haday noqoto waxyaalaha kale service-ka ay u baahan yihiin marka saas horta ururkan u asaasnay aan u sameynay inaan caawino hadda waxaan leenahay group qol la yiraahdo WhatsApp group up to 78 qof ku jirto ma sha Allah waa ugu mahadcelinahay dadkaas oo dhan qol ku jiro halka wiil waxaan ku xusayaa dad ba isteeday kala ka imaaday magaalooyin kala ka imaaday gobolada kale American iyagana uga mahadcelinahay imaatinkooda marka intaas marka uga baxo ururka wuxuu ku saabsan yahay waxaan u maleeyaa ila garateen ururkan kuma saleysano qabiil siyaasad
taageero xisbi iyo campaign oo dad loo campaign gareynaa inta ma jirto ururkan wuxuu ku saabsan yahay qof walbo oo reer Jubbaland ah hadduu dhibaataysan yahay seen dib uga saarnaa haddii ay tahay horumar u gaarnaa magaaladii iyo nawaaxigeeda waxaas buu ku saabsan yahay moogi campaign iyo siyaasad kuma jirno waana isku taageersanayna okay waxaana waa marka magaalada Kismaayo u gudbo waxyara ka taabto amnigeeda iyo nabadda iyo tirsanayso saacada la taagan yahay magaalada sida uga warhaysiin waxa ka socda mashruucyo badan oo ka mid yahay new plan oo hadda Kismaayo loo sameeyay wadooyin badan inay marayso in oo la balaarinayo magaalada la sii weynaysiinayo mashruucaas uu socdaa hadirtaan waxa kaloo jiro real estate oo lagu waco la dhaho billion estate guryo cusub la soo bandhigo waaye YouTube-da ku jira waa iyadana project kale oo magaalada la hirgeliyay waaye waxay ku tusinaysaa magaalada inay amni tahay ganacsatada ay maalgelinayaan magaalada horumarkeeda ay taas ku tusinaysaa inay magaalada amni tahay ay wanaagsan tahay waan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo dhammaan dadka la shaqeynayo amniga sugaayo madaxweyne Axmed Islaam oo ugu mahadcelinaynaa marka waxaan u maleeyaa Soomaaliya ay tira hadal banahan buuxsho muhiimadda shirkan waa uga dhaca u maleeyaa waxaan rabaa inaan ku soo afjaro wax walba oo magaaladaas Kismaayo maadaama markaan Kismaayo ku soo celinayo waa meesha hadda anaga aan ka imaanay rag badan oo Jubbaland deegaanada kale ka imaada caawa ku casuumiin meeshaan way joogaan waa uga mahadcelinaa iyagana marka aan Kismaayo ka tilaabsano ayaan gaari karnaa meelihii kale waayo hadda meesha kaliya aan dhihi karno Jubbaland waa ka duuli kartiin waa ka balaarin kartiin arrimihiin waa ka socon kartiin waa magaaladeena maxaa yeelay dad noogu soo warbixiya noo joogo dad badan aan ku haasanaa dad waxaa jiro oo wax walba magaalada ka socda nolosha sheer gareenayo insha Allah wax qabadkeenan wuxuu noqonayaa mid all Jubbaland gaaro gobolada dhan Jubbaland haddii Ilaahay yiraahdo marka waxaan leeyahay mar labaad waa mahadsantihiin kasoo qayb gasheen magaalada Minneapolis xalfadda caawa la soo agaasimay aadan iiga mahadcelinayaa waxaan ku soo afjarayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Okay, igu sacabiya marka